ugu horeyn horta naani aad u maasantahay oo ku faraxsanahay maanta inaan maaragtay Cabdifataax Naani page-kiisa aan maanta iyo meedihiisa baan ka soo muuqday waana markii ugu horeysay aad ugu faraxsanahay xaqiiqatan xulka qaranka Soomaaliyeed marka aad fiirisid bandhig ahaan waxa jira hal iyo laba ilaa saddex player oo key players ah oo laga daawan karay muuqaal ahaan qaabkii u dheelaayeen isku xirka kubadaha iyo ma aragtay qaabka ay kubadaha inta badan u raadsanayeen ma jirin kubado ma aragtay inta badan hadda for example Ciyaaryahan Ibrahim Ilyas oo kale wuxuu ahay ciyaaryahanka key playerska shalay ciyaarta ka dhex muuqday oo ahay marka fiirisid kubadaha inta badan soo gaaray aad u yaraayeen balse haddana kubada markay lugtiisa soo gaarto qaabka uu kubada u dirbil gareynay dhaqaaqiisa dhulka uu isticmaalay aragtidiisa ahayd in saaxiibkiisa oo la ciyaaro ciyaaryahan Xaaji oo kale inta badan kubadaha ciyaaryahanka inta badan ku qoodinayo oo ahay aragti ahaan say maaragtay visionkiisa ay hamigiisa goosha qaabkii uu furantahay qaab cajiib ah marka aad fiirisid waan ciyaaryahanka kaliya xalay ama shalay ciyaarta ugu saameynta badnaay macalinkan in dooqahan oo u xisho runtii aad ugu amaana runtii macalinka waxa jiray waxyaabo badan oo ciyaartoyda iyo bahda social media iyo maaragtay bahda sports ka guud ahaan ay aad u dareynayeen in ugu yaraan hebel ma lagu soo bilaabo oo macnaha anaga naftirkeena aan dareemeynay haddana waxa jiray dooqa macalinka uu leeyahay marka fiirisid waxa laga yaabaa naani ahaan jecel ciyaaryahan jecel inuu iskaga ka jiro anoo Cabdullah ciyaaryahan jecel inuu iskaga ka jiro haddana macalinka shaxdiisa ama tacticalkiisa ama dooqiisa uu san noqonin laakiin waxa ku amaana macalinka ciyaaryahan Ibrahim Ilyas oo kale ciyaaryahan kooxda horseed ah horyaalka la qaaday markii ugu horeysay gobolka Banaadir naftirkiisa markii ugu horeysay koobka la qaaday ciyaaryahan aad u nasiib badan ah marka fiirisid lakigiisa aad u fiican yahay dhaxda waxa malaysaa qaabka ciyaartoyda dunida rotationka dhaxda ay u adeegsadaan box ahaan area uu ciyaaray marka aad fiirisid dhulka uu isticmaalay dhul cover ahaan aad u fiican oo space fiican oo aad ugu dhaqaaqay aragti ahaan oo weeraan 2 ilaa 3 jaanis oo gool loo filan karay oo maaragtay oo targada uu sameeyay mana jirin ciyaaryahan sidaas oo kale sameeyay ciyaaryahan Xaaji oo kale isaga naftirkiisa isku dayo fiican oo dhaqdhaqaaqa uu sameeyay laakiin Ibrahim Ilyas wuxuu ahay ciyaartoy ahaan marka la fiiriyo ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed shalay ciyaaryahanka ugu muhiimsanaa horta Ibrahim Ilyas asaga dhan dalka wuxuu joogaa muddo yar marka aad fiirisid wax sanad iyo bar wax la dhihi karo joogaa hal ciyaarado horyaalka oo hadda la qaatay kooxda horseed oo muddo kadib markii ugu horeysay horyaalka dib ahaanada kooxda caawiyayaan oo dib u soo dhisay saaxiibkay macallin Cabdijoon oo maaragtay herka iyo maaragtay waayaha maanta ay ku jirto maaragtay macallinkii sababtu ahayd sababtoo ah horseed koox laga bariyayo waxay ahayd biidi iyo meelahaas inay ku noqoto kadib macallin Axmida qabtay isbedel fiican oo teamka ku sameeyay macallimiin kale way ka horeeyeen laakiin macallinka kullu guuleysay macallin Axmid waa Ibrahim Ilyas local ahaan marka loo fiiriyo ciyaartoyda localka laga waday wuxuu ahaa ciyaartoyga muuqaal ahaan gameka shalay guud ahaan ciyaartoyda ugu fiicnaa xitaa ciyaartoyda qurbaha laga keeno marka aad fiirisid ciyaaryahanka gameka ugu saameynta badnaay ugu cajiibsanaay daawashadiisa aad u fiicneed markaas oo kale waxaan dhahnaa geesi garba waayo kala waa la dhahaa markaas oo kale marka aad fiirisid laakiin distance ahaan dhulka qaabka aragtidiisa qaabka kubadaha uu jiidayo xirfad ahaan waliba xitaa ciyaartoyda inta badan ma isku degdegeen marka aad fiirisid sababtoo ah fudeedka inta badan kubada uu ku dhaqaadanay iyo maaragtay aragtidiisa kubada ahaaneed aad u fiicanta waxaana waana nooca la dhaho ciyaartoyda maaragtay professionalka nooca la dhihi karo kamid yahay